madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in Ruushka uusan weli wax natiijo ah uusan ka soo saarin dagaalka uu ka wado waddankaasi Ukraine uuna guulo ama baqasaaro weyn ay ka soo gaartay dagaalka uu ku qaaday waddankaasi Ukraine. waqtigaasi ay jirto waxa uu shaaca ka qaaday in wadaxaajoodka labada dhinac ay maanta sii socon doonaan oo Talaada. madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa muuqaal uu soo duubay xalay waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow aysan sheegaynin wax xaqiiqda u dhow ka oo ku saabsan khasaaraha ka soo gaaray dalkaasi Ukraine dagaalka ay ku qaaday. sidoo kale waxa uu ka hadlay cunaqabataynta reer galbeedka ee Ruushka ay saareen, waxaana uu sheegay in ilaa iyo hadda ay yihiin kuwo si wanaagsan ku socda, waxaana la diyaarinayaa wejigii afraad ee cunaqabataynta ka dhanka dowladda waddankaasi Ruushka. sidoo kale waxa uu ka hadlay arrinta wadaxaajoodka madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in qaab fiican ay ku socoto, balse waxa uu tilmaamay in uu ku baaqiyo in ra'iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett uu isagu ka soo qayb qaato dadaalada diblomaasiyadeed ee la doonayo in dagaalkaasi lagu joojiyo. wariyaha BBC-da waa Al Jazeera ayaa soo sheegaya in la maqlayay xalay dhawaqyada qaraxyo aad u xoogan oo loo maleynayo duqeyn dhinaca cirka ah oo ku socotay caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ukraine waxa uu shaaca ka qaaday in uu filan karo in dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine uu soo gabagaboobi doono horaanta bisha May ee soo socota haddii aysan dowladda dalkaasi Ruushka u hoggaansamin qodobada ka soo bixi doona heshiiska ay hadda wadageli doonaan wufuudda labada dhinac kala hogaaminaysa. video uu soo duubay ayaa waxa uu ku sheegay in meelaha ugu sareeya ay maleynayaan in dagaalka laisla gaari doono ay tahay horaanta bisha May. sidoo kale waxa uu sheegay in iyagu ay ogol yihiin heshiis nabadeed. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay arki doonaan dhacdooyinka cusub ee soo socda ee dhici doona. sidoo kale waxa uu tilmaamay deegaanada dhinaca koonfurta marka laga hadlo ciidamada Ruushka inay halkaasi ciidamo badan oo cusub ah ay geenayeen tan iyo bishaniba, halkaasi oo xitaa ay tababaro ku siinayaan. saacadii la soo dhaafay dowladda dalkaasi Japan wakaalada wararka Reuters waxa ay leedahay waxay xayiraad ay ku soo rogtay 17 qof oo Ruushiyaan ah, kuwaasi oo ay saraakiil ay ku jiraan kuwa oo laga xayiray lacagihii u tiiray waddankaasi. John Kirby, afhayeenka wasaaradda difaaca dalka Mareykanka ee Pentagon, ayaa waraysi u siiyey shabakadda CNN-ka waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay marnaba hor istaagi doonin in diyuurado iyo sidoo kale nidaamka militari heerka difaac loo diro waddankaasi Ukraine, balse waxa uu tilmaamay in ay ka gaabsan doonaan in diyuurado Mareykanka uu leeyahay loo diro waddankaasi Ukraine. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku eedeeyay in uu weli sii horinayo colaadda waddankaasi Ukraine. Mr. Kirby waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay indhaha ay ku hayso jawiga xaaladda Poland ee dhinaca xuduudda ku yaala ee Ukraine. xukuumadda Washington waxa ay diyaar u tahay ayuu yidhi in ay furto kanaalo waliba oo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi Ukraine. dhinaca Britain, wasaaradda difaaca ee Britain ayaa waxa ay tilmaantay in Ruushka uu leeyahay qorshayaal uu ku doonayo in hubka kiimikada uu ku adeegsado waddankaasi Ukraine, isaga oo tilmaamaya in uu ka jawaabayo dagaalka amaba duqeyn loo geysto ciidamadiisa Ruushka ee iyagu xuduudda ka gudbay. wasaaradda barteeda Twitterka waxa ay soo dhigtay in Ruushka uu hadda uu sameyn doono in hubka kiimikada uu adeegsado waddankaasi Ukraine, wasaaradduna oo ay hayso cadeymo muujinaya qorshahaasi. dowladda dalka Mareykanka iyo xulafada ayaa ku eedeeyay Moscow in ay baahinayso propaganda ka dhana dowladda dalkaasi Ukraine. sidoo kale waxa ay sameyn doontaa ayaa la yidhi inay adeegsato hubka kiimikada haddii ay sii socoto dagaalka maalmaha soo aadan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay dowladda Ruushka in ay cawaaqib xun ay la kulmi doonto haddii ciidamadeedu ay adeegsadaan hubka kiimikada oo ka dhan ah waddankaasi Ukraine.